shirka golaha wasiirada ee xukuumadda dawladda federaalka Soomaaliya oo maanta ay ku yeesheen xafiiska wasaaraha waxa shir gudoominayay Ra'iisul Xasan Cali Khayre iyadoo looga hadlay qodobo badan. shirkan ayaan ahayn shirarkii hore ee ay yeelan jireen golaha wasiirada. waxa maanta shirkan lagu magacaabay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed oo loo magacaabay Bashiir Ablaal iyo sidoo kale waxa isna loo magacaabay taliyaha nabad sugidda wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka oo isagana laga dhigay taliyaha nabad sugidda qaranka Soomaaliya Xuseen Maxamed Xuseen. shirka golaha wasiirada waxa saxaafadda la hadlay wasiir dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Xaamud Maxamed. kadib markii way faahfaahin dheer ay ka bixiyeen shakhsiyaadka ay u soo ordooteen oo aan ognahay inay cabaar abaashan anagana la fadhiday waxayna ahayd taxadir inay dawladda bixiso qofka ugu mudnaanta fiican ama loo isla leeyahay shaqadaas waa ka soo bixi karaa in horta la siiyo ma ahan wax kale laakiin tala fara badan ayaa la geliyay wasiirka amniga iyo wasiirka cadaaladda ay geliyeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qarankana ayagana dadaalkaas oo ay wax ka wadeen in arintaas laga soo miro dhaliyo. waxaa maanta 19 February loo magacaabay taliyaha booliska General Bashiir Ahmed Maxamed oo hadda ah ku-xigeenka taliyaha booliska. sidoo kale waxaa taliyaha nabad sugidda loo magacaabay Mudane Xuseen Cusmaan Xuseen oo hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka. waxaa kaloo loo magacaabay taliyaha ciidamada asluubta Sarreeye Guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe oo hore u ahaan jiray jagadan. marka aadan ugu faraxsanahay taasna wasiirada markii la weydiiyay 25 wasiir maanta fadhiday wasaaradda caafimaadka ee naga maqneed 25 wasaaradu way isku raaceen waana soo dhaweeyeen. waxaan u rajaynaynaa taliyaasha cusub oo la soo magacaabay kuwa ilaahay u fududeeyo shaqada ay qabanayaan. waxaan u rajaynaynaa kuwii dhibaatada wadanka ka bixin lahayd la magacaabay taliyaha asluubta oo loo magacaabay Bashiir Goobe oo isaguna hore u ahaan jiray taliyaha asluubta. محمد عبد عثمان محمد فرديره ستار تي في حرunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya Muqdisho.